wararka ka imaanaya gobolka Gado waxay sheegayaan ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya oo aad u fara badan ay ka soo gudbeen xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Ciidamada ayaa wata dabaabaad iyo hubka culus waxaana la sheegay in gudaha u soo galeen Soomaaliya waxaana wararka sheegayaan in qayb ka noqon doonaan howlgal dhawaan ka bilaaban doona deegaanada maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed. Sidoo kale gobjogal ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha dowladda ay ka degayaan diyaaradaha sida qaar ka mid ah ciidamada waddanka Itoobiya waxaana la sheegay in dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in ciidamo ka tirsan wadamada safka hore ee Soomaaliya ay soo gali doonaan kuwaas oo qayb ka noqon doono wajiga labaad ee howlgalka ay hogaaminayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka kuwaas oo lagu soo horjeeda al-shabaab. Horey dalkeena Soomaaliya waxa uu joogay ciidamo ka tirsan howlgalka ADMIS kuwaas oo ka socda wadamo badan oo kamid ah qaaradda Afrika. Maxamed Ruuray, warbaahinta Goobjoog. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.